Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Jimco wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan. Waa habeenimo Jimcaha bisha Abriil ay sii gelayso 26 sanada 2024. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 5 wadan oo Yurub ah iyo sidoo kale Midowga Yurub oo fariin la yaab leh u soo diray Somalilan. Fariintan oo Somalilan lagu ammaanay isla markaana loogu hambalyeeyo ayaa waxaa markaas u soo diray 5taasi wadan ee reer Yurub iyo weliba Midowga Yurub oo wada socda. Haddaba fariintani maxay tahay aan eegi doonaa iyadoo Somalilan markaas ay u diyaar garoobayso doorashooyinka bisha November ee sanadkan 2024. Xogo kala duwan ayaa kasoo baxaya doorashada Somalilan ee soo socota iyo weliba cidda markaasi loo dooranayo madaxweynaha Somalilan oo haatan markaasi ay dadka qaar sii saadaaliyeen ama lasii ogaadayba xogo hoose oo la helay awgood oo markaasi loo saariyey in doorashada soo socota ee Somalilan ay markaasi ku guuleysan doonaan mid ka mid ah xisaabta ama xisbiyada Somalilan. Iyo arrin la yaab leh oo ka taagan magaalada Muqdisho kadib markii ay isaga kala tageen magaaladaasi dhammaan madaxdii markaasi ugu sarreysay ee markaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dad badan ayaa la yaabi doona guud ahaan markaasi hadalka. Waxaa guud ahaanba la tilmaamay in madaxdii ugu sarreysay ee markaa dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaantood markaasi ay ka wada baxeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xitaa taliyayaasha ciidamada ayaa markaasi maqan. Waxaan eegi doonaa guud ahaan sababta arrintaasi ay ku dhacday iyo weliba cidda haatan wadanka looga tegay ee markaa guud ahaan maamuleysa ayaan eegi doonaa iyo weliba arrintaasi la yaab ka leh ee magaalada Muqdisho ka taagan xilli ay markaa taagan tahay xiisad u dhexeysa shacabka reer Somalilan ee ku dhaqan magaaladaasi Muqdisho iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Shiinaha oo dalbatay malaayiin litir oo caanaha geel ah ee Soomaalida ah. Arrin markaasi ku cusub guud ahaan Soomaalida waa dalabkii ugu horreeyay ee markaasi Soomaaliya uu Shiinuhu markaasi kasoo dalbanayo malaayiin litir oo caanaha markaasi geela ayuu soo dalbaday Shiinuhu. Haddaba Shiinuhu muxuu ka doonayaa ayaan eegi doonaa markaa caanaha geela ee haatan uu soo dalbaday. Shiinaha oo la ogyahay markaasi in meel walba oo uu nacfi markaasi ka dareemo uu guud ahaanba soo aado ayaa xilligan waxa uu markaasi soo aaday caanihii geela iyo dhankaas ay usoo dhaqaaqay. Haddaba muxuu markaasi ku arkay ayaan eegi doonaa. Qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan saaxiibayaal. Waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdixakiin Isaaq Aadan ah. Soo dhawaada. Aan ku bilownay ilaa iyo 5 wadan oo markaasi reer Yurub ah iyo Midowga Yurub ayaa fariin u soo diray Somalilan. Fariintan oo ahayd markaasi mid loogu hambalyeeyay Somalilan doorashooyinka iyo sidoo kale waqtiga ay u mudooyeen iyo dimuqraadiyadda Somalilan ka hana qaaday ayaa markaasi wadamadan ay ku tilmaameen inay tahay wax aan guud ahaan laga helinin wadamada dhammaantood qaaradda Afrika. Haddaba Somalilan ayaa markaasi waxay qaadaysaa tallaabooyin waaweyn oo u sii dhaweynaya aqoonsiga iyo weliba in dunidu ay u qirto inay markaasi xilligan Somalilan u qalanto inay dunida ka mid noqoto oo loo aqoonsado wadan markaasi ka mid ah wadamada qaaradda Afrika iyo caalamkaba. Wadamada u soo diray guud ahaan fariintan ayaa markaasi waxaa ka mid ah wadanka Ingiriiska, Denmark, Sweden, Norway iyo weliba wadanka Jarmalka iyo Midowga Yurub oo markaas soo dhaweeyay guud ahaan shaacinta waqtiga doorashooyinka Somalilan ee ay ka qabsoomi doonaan 13 bisha November ee sanadkan 2024. Waxaana ay tilmaameen inay tahay markaasi wax weyn oo markaa ay Somalilan qaadayso ama tallaabooyin waaweyn oo Somalilan ay qaadayso. Somalilan ayaa waxa ay doonaysaa markaasi in doorashadan soo socota ee 13 bisha November dhici doonta inay markaa gasho iyadoo Somalilan haysata ugu yaraan markaasi wadamo dhowr ah oo u aqoonsan Somalilan inay tahay wadan markaasi dunida laga ictiraafsan yahay oo guud ahaanba ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Waxaana ay doonaysaa markaa inta soo hadhay qaramada midoobay iyo weliba wadamada qaaradda Yurubna inay qaadi doonaan tallaabo markaasi ku aadan aqoonsiga Somalilan haddii doorashada Somalilan ay qabsoonto si dimuqraadiyan ay ku qabsoonto iyadoon la isku qabsanin isla markaana sidii caadada u ahayd Somalilan ay ku dhammaato. Waxaa dad badan ama boqolkiiba 90 ay markaasi falanqeeyaasha caalamiga ah tilmaamayaan in Somalilan ay heli doonto aqoonsi sanadkan 2024 inta uusan dhammaanin. Qaramada midoobay markaasi laga yaabo xitaa inay ku dhawaaqdo aqoonsiga Somalilan maadaama dhacdadaasi ay tahay dhacdo weyn oo guud ahaan Somalilan aad looga wada sugayo xilligan ay kusoo aadaysa xilli aad xasaasi u ah ayaa la tilmaamay in Somalilan iyo shacabkeeda iyo madaxdeeduba waxaa loogu baaqay inay noqon doonto guud ahaan imtixaankii ugu dambeeyay ee Somalilan ay ugu gudbi doonto inay wadan guud ahaan markaasi buuxa oo caalamka laga aqoonsan yahay inay noqoto. Wadanka Itoobiya ayaa haatan markaasi waxaa la filayaa inuu guud ahaanba aqoonsi siin doono Somalilan iyaguna markaasi ay kaga bedelan doonaan saldhig ciidanka badda ee dalkaasi Itoobiya ay siin doonto Somalilan. Waxaana taasi markaa la rajeynayaaba in maalmaha soo socda ay guud ahaan qabsoomi doonto walow ilaa iyo haatan Somalilan la tilmaamay in dhankeeda ay
dowladda Itoobiya ka warsugayso islamarkaana ay guud ahaan fariimaha kala duwan ee dowladda Itoobiya uga imanayo inay tahay in guud ahaanba la dedejiyo heshiiskaasi iyo weliba qalinku duugistiisa. waa tahay haatan aniguna magaalada Muqdisho waxaa guud ahaan kasoo baxay arrimo markaasi la yaab leh. waxaa saacadihii ugu dambeeyey wadanka ka dhoofay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaasi casuumad rasmi ah ka helay madaxweynaha wadanka Tanzania Samia Suluhu oo markaasi usoo dirtay casuumad rasmi ah isagoo ka qaybgeli doona markaasi sanad guurada wadankaasi waqtigii uu xorriyadda helay, sidoo kale midoogii labadii jamhuuriyadood ee markaasi wadanka Tanzania ee isku biiray. waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi uu xafladaas uga qaybgeli doonaa wadankaasi Tanzania. sidoo kale waxaa soo baxay warar tilmaamaya in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo markii ugu horreysay uu usoo amabixi doono isagoo markaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya, halkaasina uu ku iman doono markaasi safar, isagoo halkan guud ahaan muddo dheer markaa deganaa waqtiyo kala duwanna kusoo noqnoqonayay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, balse waxa uu noqonayaa safarkiisan kii ugu horreeyey ee muddada markaas uu xilka ra-iisul wasaarenimada Soomaaliya hayo uu ku imaanayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalkan Kenya. waxaa sidoo kale halkan uga soo horreeyey gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo isaguna safar markaasi ku imaaday dalkan Kenya. sidoo kale taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markaasi Muxyidiin ayaa isaguna markaasi imaaday oo magaalada Nairobi haatan ku sugan. sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ka baxay oo haatan aanan joogin taliyihii ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya oo isaguna markaa gobolada dalka booqday. haddaba arrintan ayaa noqotay markaasi mid la yaab leh in madaxda qaranku ay hal mar markaasi wada baxaan, iyadoo weliba xilligan uu jiro guud ahaan markaasi culays siyaasadeed oo aada u ballaaran. ayaa la tilmaamay in madaxdu ay u muuqato in culayskii uu ka batay islamarkaana ay xaamili waayeen inay magaalada Muqdisho markaasi wax lagu xaliyo. waxaa is haysta markaasi maamul goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. ilaa iyo haatan madaxdii dowlad goboleedyada Soomaaliya waxa ay markaa diidan yihiin inay imaadaan qaar ka mid ah magaalada Muqdisho oo la doonaya inuu ka furmo shirka wadatashiga qaran. madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa ay taasi ku kaliftay inuu markaasi facebookiisa ama page-kiisa uu ku leeyahay facebooka inuu halkaasi markaa uu qoraal dheer kusoo daabaco oo guud ahaan markaasi uu ku garnaqsado, maadaama madaxdii markaasi xilligan ay u muuqato inay sii kala furfurmayso. arrinkan waxaa la tilmaamay in qaar ka mid ah wadamada geeska Afrika inay ka shaqeynayaan, gaar ahaan wadanka Itoobiya. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed inuu u muuqdo markaasi inuu seefta galka kala baxay oo xasan sheekh maxamuud, maadaama uu markaasi caalamkii uu ka dhaadhicinayo in Itoobiya ay duulaan ku tahay, markaasi wadamadii caalamkuna ay dhegeysanayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya. marka la isbarbar dhigo Itoobiya iyo markaas Soomaaliya, caalamku waxa uu dhageysanayaa Soomaaliya oo inta badan wadamada reer galbeedka kuma qanacsana markaasi xukunka Abiy Ahmed ee magaalada Addis Ababa ka arriminaya. marar badan waxay isku dayeenba inay meesha ka saaraan, balse haatan maadaama uu markaasi dunidii ku dirayo xasan sheekh maxamuud Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa, waxaa Abiy Ahmed uu doonaya inuu isaguna ku diro dowlad goboleedyada Soomaaliya oo markaasi uu isaguna markaa hal dhumo iyo hal dhaan raaca uu ka dhigo. maamulka Puntland goor hore ayuu markaasi uu guud ahaanba la tegey oo Abiy Ahmed u qaatay, halka la tilmaamay in Jubbaland iyo markaasi koonfur galbeedna iyaguna haatan markaasi ay wadada sii hayaan oo ay kusii socdaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadankaasi Itoobiya. xasan sheekh maxamuudna sababta ugu weyn ee kulankaasi uu iclaamiyey ayaa ahayd inuu ku qanciyo markaasi ama uu ka joojiyo safarka lafta gareen iyo Axmed Madoobe ay ku tegi lahaayeen magaalada Addis Ababa, halkaasina markaasi ay ku markaasi qaban lahaayeen. ayaa la tilmaamay inuu rabay markaasi inuu ugu soo weeciyo dhanka magaalada Muqdisho oo halkaasi ay imaadaan, balse ilaa iyo haatan waa lagu qanci la'yahay. waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddu sidoo kale ay wajahayso dhaqaale darro aada u baahsan oo markaasi guud ahaan dhanka dhaqaaluhuna uu aada u hooseeyo. dhanka dhaqaalaha inuu hooseeyana waxaa keenaysa in markaasi dunida dhaqaalaha bixinaysayna xilligan ay dagaalo ka jiraan oo barigii dhexe uu holcayo, sidoo kale Ukraine iyo weliba markaasi Yurubna ay markaa holcayso oo Ruushkii ay halkaasi isku hayaan. Mareykankuna uu inta badan awoodiisa dhaqaale iyo tiisii markaasi kale ee kaalmaba uu isugu geeyey markaasi wadanka ay markaasi ishayaan Ruushka, iyo guud ahaan markaasi isagoo Yuhuuddana taageero siinaya oo u kala qaybiya labadaasi dhinac. ayaa inta badan cidda deeqaha bixiso ee dunida markaasi taageertana waa Mareykankuna xaggaas ayuu xilligan kusii jeedaa. dowladda Soomaaliyana waxay isku furtay markaasi fureen dagaal oo aada u adag oo kooxdan argagixisada ee shabaabku waa koox markaasi muddo dheer dhiigga dadka Soomaaliyeed jaqaysay, guud ahaanna markaasi lacago badan urursaday, dhaqaale ahaanna markaasi xilligan u muuqdaba inay dowladda federaalk ee Soomaaliya aada ugu dhaqaale badan yihiin.
waxaana taasi ay keentay dagaalka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay gashay inay markaasi dhaqaalaha xoogaa hoos u dhigtay. Waxaana la tilmaamay haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayay inuu dhaqaale helo, maamuladiina waxa markii hore la isugu hayn jiray ee markaasi isku haynayay Soomaalida markii horeba hungurin buu ahaa, ma ahay markaasi dana lagu wada joogay iyo saaxiibtinimo iyo dana dowlad Soomaaliyeed oo la dhiso laguma wada joogin, marnabna laguma heshiinin. waxa lagu wada joogay waxay ahayd inaan wax wada cunno, wixii caalamka ka imadana markaasi aan qaybsanno unbay ahayd wixii lagu wada joogay. tii haddii la waayana waxay noqotay inay cid walba markaasi meel ka baxdo oo la iswaayo oo guud ahaan markaasi hal dhumay iyo hal dhaan raacay ay kala noqdaan. Akhaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.